Geedi socodka nolosha aadanaha waxaa mar walba qaabeeya laba arrimood oo waaweyn: waa dhulka iyo biyaha. Dhulka beerashadiisu waa aasaaska ilbaxnimada, laakiin labada dhinac ee adduunku waa mid ku horumaray tiknoolajiyadda caalamiga ah iyo mid soo koraya oo la daalaa dhacaya isbeddelka cimilada. Dhanka kale, dalka Mareykanka oo ahaa quwadda ugu weyn ee dhanka beeraha adduunka marka laga soo tago Netherland iyo dalka Shiinaha oo uu soo weheliyo dalka Brazil, sanado badan dalkani waxa uu ahaa dambiisha cuntada ee caalamka. Laakiin maanta waxa uu wajahayaa caqabado gudaha iyo dibadda ah oo ruxaya aasaaskii beeraleyda Ameerikaanka ah. Dhanka kale, bartamaha qaaradda Afrika, gaar ahaan gobolka loo yaqaan Saaxil, waxaa ka socda kacdoon aamusan oo dhanka beeraha ah. Burkina Faso oo ah waddan aan bad lahayn, isla markaana muddo dheer lala xiriirinayay abaaro iyo saboolnimo, ayaa hadda la timid qorshe aad u mug weyn oo wax ka beddelaya wax soo saarka guud ahaan qaaradda. Waa iskaashiga cusub ee waraabka ee $9 bilyan ku kacaya oo ay Burkina Faso la gashay dalka Hindiya. Tani ma ahan oo keliya sheeko ku saabsan biyaha iyo beeraha, tani waa sheeko ku saabsan madax-bannaanida dhaqaale, sharafta qarannimo, iyo isbeddelka awoodda juqraafi siyaasadeedka ee qaaradda. Waxa ay su'aal gelinaysaa hab-fadhigii muddada dheer jiray ee adduunka ee ku dhisnaa in Afrika ay mar walba gargaar ka sugto dalalka caalamka, halka waddamada reer galbeedku ay u yeeriyaan shuruudaha horumarka. Si aynu u fahamno miisaanka sheekada, waa inaynu marka hore eegnaa waxa ka dhacaya dalka Mareykanka. Beeraleyda ku nool gobollada u dhow webiga Mississippi iyo dhulka ballaaran ee dhexe ayaa hadda wajahaya marxalado kala duwan. Beeraleyda Ameerikaanka ah waxa ay maanta wajahayaan xaaladda loo yaqaano squeeze amaba ciriiri dhaqaale oo labada dhinacba ah. Qiimaha shidaalka oo sii kordhaya iyo dalka oo ku jira dagaal siyaasadeed. Shidaalka ayaa lagama maarmaan u ah cagafyada beeraha, mashiinada waaweyn, iyo gaaska dabiiciga ah ee loo isticmaalo soo saarista bacriminta ayaa qiimahoodu aad u sii kacaya sababo la xiriira xasilooni darrada caalamiga ah ee ka jirta suuqyada tamarta. Si beeraleydu ay u iibsadaan qalabka ugu dambeeya ee tiknoolajiyadda ee GPS-ka iyo abuurka la hidde-sidaha beddela, waxa ay galeen deymo malaayiin dollar ah. Bangiyada dhexe oo sii kicinaya heerarka dulsaarka si ay ula dagaalamaan sicir bararka ayaana culays weyn ku noqday beeraleyda dakhligoodu hoos u dhacay. Mareykanku waxa uu muddo dheer ahaa dhoofiyaha koowaad ee galleyda iyo weliba dalagyada qaar. Si kastaba ha ahaatee, dagaalada ganacsi, gaar ahaan kii dhex maray Mareykanka iyo Shiinaha, waxa ay ku khasbeen waddamada waaweyn ee wax soo iibsada inay raadsadaan beddelaad kale. Brazil ayaa hadda kaalinta koowaad kala wareegtay Mareykanka dhanka dhoofinta digirta loo yaqaano Saibo beans, iyada oo dalkaas weyn ee Koonfurta Ameerika ku yaalla uu helay suuq cusub oo si toos ah u quudiyo. Sida uu sheegay beeraleygii howlgabka ahaa ee qoray buuggii caanka ahaa, waxaa qoraaladiisa uu ku xusay qaybo ka mid ah: waxaan aaminsanaan jiray in mustaqbalku mar walba uu noo imaan doono, haddana waxaan isweydiinayaa meesha uu u socdo. Qoraahdani waxa ay muujinaysaa argagaxa dhabta ah ee haysta jiilka cusub ee beeraleyda reer galbeedka, kuwaas oo ogaaday in suuqyadii ay ku lahaan jireen quudinta adduunka ay sii dhammaanayaan. Gobolka Saaxil waxa uu caan ku yahay cimilo aad u adag, dhul aamus badan, iyo weliba deegaano qallafsan. Waa dhul ku yaalla cirifka koonfureed ee saxaraha weyn ee Afrika, halkaas oo roobabku ay ku yar yihiin, marka ay da'aanna ay u da'aan si xad dhaaf ah, taas oo keeni karta daadad burburiya ciidda iyo weliba nafaqada. Muddo qarniyo ah, nolosha qoysaska reer Burkina Faso waxay u xayirnaayeen roobka. Haddii roobku daaho 2 toddobaad oo keliya, abuurka dhulka ku jira waa uu baabi'i jiray amaba uu qalali jiray. Tani waxa ay keeni jirtay gaajo baahsan, barakac dhalinyarada u horseeda inay u guuraan magaalooyinka waaweyn amaba ay galaan safarro khatar badan oo ay ugu tahriibayaan qaaradda Yurub. Suurayso sheekada Muuse oo ku saabsan aabihiis oo eegaya beertiisii oo maran, isaga oo wax kasta geliyey, sidoo kalena diyaariyey guud ahaan abuurka, laakiin roobkii uu soo daahay amaba uusan di'in.
Tani ma ahan oo kaliya dhibaato dhaqaale ee waa dhaawac nafsi ah oo jiilba jiilka kale uu u sii gudbinayo dareenka tabardarrada. Haddaba muxuu yahay heshiiska Burkina Faso ay la gashay dalka Hindiya ee ku kacaya 9 bilyan ee dollar? Marka laga hadlayo heshiis kaabayaal dhaqaale oo gaaraya 9 bilyan oo dollar oo loogu talagalay waraabka oo kaliya sida dal Burkina Faso oo kale ah, tani waa miisaaniyad aad u weyn oo ah mashruuc waxtar leh. Mashruucan oo lala galay dalka Hindiya waxa uu ka kooban yahay dhowr qaybood oo muhiim ah, kuwaas oo isbuuxinaya. Harooyinka biyaha. Waxaa la dhisayaa biyo-xireenno waaweyn oo qabta biyaha xilli roobaadka si loo isticmaalo xilliga jiilaalka. Tanina waxa ay meesha ka saaraysaa cabsida baaba'a dalagga xilliga abaaraha. Nidaamka bamka ku shaqeeya ee tamarta qorraxda waa mid ka mid ah waxyaabaha hortebinta u leh mashruucan. Waxaa la adeegsanayaa matoorada biyaha soo saara oo ku shaqeeya tamarta qorraxda oo aad u awood badan. Tanina waxa ay meesha ka saaraysaa baahida shidaalka qaaliga ah ee laga soo dhoofin lahaa dibadda. Tiknoolajiyadda iyo waraabka casriga ah ayaa ah qayb ka mid ah waxyaabaha mashruucan muhiimka u yahay. Waa tiknoolajiyad ay caan ku tahay Hindiya, taas oo biyaha si toos ah ugu dhibcisa xididka geedka si looga fogaado uumibaxa. Tani waxa ay badbaadisaa ilaa 70% biyaha marka loo eego waraabka caadiga ah. Injineerada iyo khubarada beeraha ee Hindiya waxa ay tababar siinayaan dhalinyarada iyo beeraleyda maxalliga ah ee Burkina Faso. Tanina waxa ay dhisaysaa aqoonta gudaha ah oo aan u baahnayn la tashiyo shisheeye oo joogto ah. Sababta ay quwadaha caalamiga ahi si aad ah ugu fiirsanayaan mashruucan maahan oo kali ah in uu yahay mid beereed, balse gobolka saaxil gaar ahaan 3 waddan ee kala ah Burkina Faso, Mali iyo weliba dalka Niger waxa ay dhowaan dhisteen isbahaysi cusub oo la magac baxay The Alliance of the Sahel States. Wadamadan ayaana si buuxda u gooyay xiriirkii gumaysiga ee Faransiiska, waxa ayna ceyriyeen ciidamadii reer galbeedka iyaga oo raadinaya iskaashi cusub oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha ah. Waxaad isweydiinaysaa maxay Hindiya u dooratay Burkina Faso? Hindiya ma ahan dal bixiya amaba lagu yaqaano gargaar lacag la'aan ah oo aan shuruud aysan ku xirnayn. Hindiya waa quwad dhaqaale oo soo baxaysa, waxa ayna ujeedadeedu tahay inay dhisto saameyn dhab ah oo ka duwan tan Shiinaha iyo weliba reer galbeedka iyo suuqyo cusub oo mustaqbalka fog ah. Afrika waa qaaradda ugu dhalinyarada badan adduunka. Marka ay dadkani helaan dakhli, waxaa jiro heshiis Hindiya ay uga iibsan doonto baabuurteeda, qalabkeeda tiknoolajiyadda iyo weliba daawooyinka caafimaadka ah ee Hindiya ay aadka ugu horeyso. Waana waxyaabaha Hindiya ay ku dooranayso inay maanta maal gashato qaaradda Afrika dalalka ku yaalo si ay berri uga macaashto oo suuqeeda iyo alaabaheeda ay ugu maalgeliso amaba ay ugu suuq geyso. Burkina Faso waa mid ka mid ah wadamada ugu wax soo saarka badan ee dhanka dahabka iyo cudbiga ee guud ahaan qaaradda Afrika. Iskaashiga dhanka beeraha waxa uu gogol xaar u yahay heshiis kale oo dhanka macdanta ah oo Hindiya ay la yeelanayso guud ahaan dalalka gobolka saaxil. Hoggaanka koonfurta caalamka ee Hindiya waxa ay doonaysaa inay noqoto codka rasmiga ah ee wadamada soo koraya ee qaaradda, iyada oo muujinaysa in qaabkeeda iskaashi uu yahay mid ku dhisan ganacsi faa'iido wadaag ah, halkii uu ku dhisnaan lahaa mid gargaar amaba ku amartaagleen ah. 10 sano hanaankii hay-adaha reer galbeedka sida IMF-ka iyo weliba Baanka Adduunka waxa uu ahaa mid ku dhisan waxaan ku siinayaa dayn amaba gargaar, laakiin waa inaad beddeshaa siyaasadaada oo aad raacdaa shuruudahayga. Sidoo kalena waa inaad albaabada u furtaa shirkadaha shisheeye. Dhalinyarada iyo weliba jiilka cusub ee Afrikaanka ah iyo hogaamiyayaasha sida Ibrahim Traore, madaxweynaha dalka Burkina Faso, waxa ay si cad u diideen hanaankan gumaysiga ah, iyaga oo doortay hanaanka isku filnaanshaha iyo weliba in dhaqaale aad samaysan karto adiga oo aan u baahan dowladaha shisheeye iyo weliba dalalka reer galbeedka. Fadlan daawade, haddii aad halkan nala soo gaartay, channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inugu xiran. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso